waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan warbaahinta wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya haddii aynu eegno. Sheekh Shariif Sheekh Axmed hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran oo kamid ah dadka sida weyn uga soo horjeeda siyaasad ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladda qabyaaladda iyo kala qaybinta ee dalka Soomaaliya ku sii xoogaysanaysa isaga oo ku eedeeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Federaalka Soomaaliya in arintan ay ku lug leeyihiin in xuduudda shacabka la kala dhantaalo xilligan oo Soomaaliya ay wajahayso khatar xoogan war-saxaafadeed ka soo baxay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu qoran yahay sida tan waxaan aad uga xumahay abaabulka qabiilaysan oo baryahan dambe hareeyay baraha bulshada iyo siyaasadda Soomaaliya kaasoo dhaawacaya wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo masiirkooda sida awgeed waxaan ka digayaa fal kasta oo dhaawici kara madax banaanida dhuleed badeed iyo cireed ee Soomaaliya waxaan u arkaa dariiqa kaliya ee aan ku difaaci karno dalkeena inuu yahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadoo aan loo eegin deegaan koox iyo qabiil toona waxaan ka xumahay in madaxda dawladdu ay ku mashquulsan tahay kala qaybinta xuduudda shacabka Soomaaliyeed halkii ay ka shaqayn lahaayeen isku duubnida dadka waxaa muuqata in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aysan u qiyaasnayn khatarta dalka ku jiro iyo sida maanta loogu baahan yahay in laga shaqeeyo tilaabo kasta oo keeni karta midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin waxaa wax aad looga xumaada abaabulka iyo dhiirigelinta qabyaaladda huwan iyo hadallada aan habbooneyn ee la isku marinayo warbaahinta waxaana cad in meesha ay ka maqan tahay doorkii xukuumadda oo gabtay howlihii kaga aadanaa jihaynta mideynta iyo abaabulka dadka Soomaaliyeed sidii ay dalkooda u difaacan lahaayeen waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan in ay ka gudbaan qabiilaysiga iscolaysiga iyo khilaafaadka dhexdooda ah una midoobaan difaaca qarankooda waxaan xusuusinayaa shacabka Soomaaliyeed in ay dawladoodii ku waayeen qabyaalad sida darteed waqtigan aysan habbooneen in jidkaas xun dib loo raaco Sheekh Shariif ayaa ku soo gabagabeeyay war-saxaafadeedka kulul ee uu soo saaray oo uu ku yiri ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa madaxda dawladda inay wax ku eegaan indha qaran ee aysan ku soo hoos noqon waxa kala dhantaalaya awoodda dadka marka la joogo difaaca dalka waa inay meesha ka baxdaa kana iga soo horjeeda iyo kanaan isku kooxnahay madaxda qaranku waa in ay la yimaadaan aragtidii la isugu wadi lahaa shacabka loogana gudbi lahaa isu adeegsiga awoodda dawladeed war-saxaafadeedka Sheekh Shariif ka soo baxay waxa uu ku soo beegmay xilli maalmihii ugu dambeeyay culays siyaasadeed oo xoogan la saaray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xildhibaano ka tirsan la damcay in ay si toos ah iyagoo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maamulkaasi ku matala u waayaan xasaanadooda sabab la xiriirta in lagu eedeeyay in Itoobiya ay la safteen arintan oo markii dambe loo fasirtay inay tahay mid qabyaaladeed waxaana sidoo kale arintan ka hadlay odayaal dhaqan oo magaalada Muqdisho ku shiray kuna hanjabay in guryahooda ay ugu gali doonaan xildhibaanadii Itoobiya taageeray haddii aysan falkaasi ka soo laaban sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in qabyaaladii dalka ay aad u xoojisay isla markaana tan iyo markii xafiiska uu yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qabyaaladda iyo qabiilaysiga aad u kordhay tani oo lagu qeexay in Soomaaliya aysan meel gaarsiineen inay hoos u dhigto mooyee dawladnimada Soomaaliya waxay ku dhisan tahayba gabi ahaanteedaba nidaamka qabaa'ilka ee 4.5 mas'uul kasta oo joogana wuxuu aaminsan yahay in Soomaalinimo uu ku joogo laakiin ka hor uu aaminsan yahay ama uu ku fadhiyo meesha qabiilkiisa sida daraadeed qaranka uu kala weyn yahay qabiilka uu markaasi ka soo jeedo Soomaaliya waxaa dhibaato xoogan ku haya qabyaaladuna meel xoogan ayay gashay
oo madaxda ugu sareysa dalka iyo kuwa ugu hooseeya qof walba qabiil ayuu ka yimid qarankiisana waxaa kaga horeeya qabiilkiisa oo uu mudnaan gaara ka helay si meesha matalaad uu uga helo waana aragtida ugu weyn ee xilligan keenaysa in qofka mas-uulka ah uu aaminsan yahay in qabiilkiisa ay wax ka dhigeen oo qaranka uusan waxba ka dhigin. waa sax in madaxdu ay ku hadaaqaan qaranka aan badbaadino qaranka aan ilaashano laakiin qofka waxa uu qaranka muhiim u arkaa inta isaga xukunka uu joogo marka xukunka uu ka tagana qabyaaladiisii iyo reerihiisii ayuu dib ula laabtaa isla markaana howlihiisa uu ka sii wataa. dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay wajahaysaa fashil xooggan oo ku saabsan xakamaynta xaaladda qabyaalada dalka iyo dagaalada xooggan ee ka dhashay ka bilow shabeellada hoose ilaa iyo dhinaca Cadaado dagaalo xooggan ayaa ka dhacay kuwa kalena hadda ayaa laga abaabulayaa. xilligan xiisad waxay ka taagan tahay Qoryooley, Baraawe, Buur Hakaba, Xudur, Maandheere oo shabeellada dhexe ka tirsan oo beelo Soomaaliyeed ay ku dagaalamayeen dhowaan, Galgaduud oo maalmo ka hor dagaalo ay ka dhaceen welina dagaalo xooggan laga abaabulayo, iyo Mudug oo sidoo kale dagaalo xooggan iyaguna laga abaabulayo. sidoo kale waxaa qabyaaladan ay keentay in deegaanada qaar ciidamo macwiisley ah ay isaga baxaan sabab la xiriirta xilka qaadis iyo magacaabis la sameeyey oo ay dadka deegaanka quursadeen isla markaana ay tilmaameen qof beeshooda aan ahayn oo aysan ku qanacsaneen in la magacaabay. xaaladahan isbiirsaday ee Sheekh Shariif uu ka hadlay dad badan way ku raaceen oo waxay tilmaameen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalka uu ku celiyay 1991 iyaga oo ku doodaya in madaxweynaha Soomaaliya howlihii loo igmaday uu ku soo koobay jufooyinkiisa iyo saaxiibadiisa oo kaliya in xilalkii dowladda uu ku taxo sidoo kalena uu xilalka ka eriyo dad badan oo la soo halgamay hase ahaatee isaga aan ku beel ahayn. laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa markastoo ay hadlayaan waxa ay weeraraan dadka qabyaalada ka shaqeeya iyaga oo sheegay in qaranka Soomaaliyeed dib uu soo laabanayo isla markaana la joogo xilligii qarannimada la sii ambaqaadi lahaa. waxayna ugu baaqayaan dadka qabyaalada wada inay ka tanaasulaan oo Soomaaliya nidaamka dowladnimada ay sii xoojinayso. baaqa Sheekh Shariif waxaa ka horeeyay baaqyo kale oo ka soo baxay hogaamiyayaasha mucaaradka ee dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ka soo horjeeda waxaana ka mid ah xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdshakuur Warsame oo si aan gabasho lahayn u sheegay abaabulka qabyaaladeed ee ka socda Muqdisho ee ka dhanka ah Koonfur Galbeed inuu muujinayo wax natiijo wanaagsan aan laga heli doonin sababtuna ay tahay in Koonfur Galbeed aysan heshiis is-afgarad la gaarin Itoobiya. ATMIS heshiis iyagu ay diidan yihiin ama ay ogol yihiin aan lagu keenin Itoobiyaanka sidoo kalena aysan sameynin wax gaf ku ah qarannimada Soomaaliya laakiin la qabyaaladeeyay arrintooda taasna ay khatar ka imaan karto. Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug ayaa isaguna arrintan si adag uga hadlay oo sheegay in natiijo wanaagsan aan laga dhexli doonin xaaladda qabyaalada ee xilligan lagu wado maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. laakiin taageerayaasha dowladdu waxay aaminsan yihiin in dowladda Soomaaliya ay indho qaran ku eegayso xaaladda Koonfur Galbeed iyo dadka kale ee qabyaalada ka shaqeynaya ama Itoobiya u nacamleynaya sida ay ku eedeeyeen isla markaana indho qabyaaladeed aan lagu eegeen. muuqaalkan halkan ayaan ku soo koobaya. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad ka daawanayso muuqaalkan barta aynu ku leenahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mahadsanidin.